guud ahaan saaka deegaanada Soomaaliland waxa saaka si rasmi ah uga furmay goobaha loogu talagalay in dadweynaha kala duwan ee dalka ku dhaqan ay ka codeeyaan kuwaas oo soo dooran doona maanta doorashooyinka xildhibaanada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaanada gobolka Awdal ayaa saaka waxay isaga sumada ugu soo kaleen sidii codkooda u dhiiban lahaayeen goobaha kala duwan ee loo asteeyay in bulshada ay ka codeysay ay sabab dhaadheer u galeen dadku si ay u soo doortaan xildhibaanada ku kala matali doona golayaasha cusub ee deegaanka iyo wakiilada dhaqdhaqaaqa guud ee ammaanka deegaanada gobolka Awdal ayaa si lamida deegaanada kale ee Soomaaliland ayaa aad loo adkeeyay madaxweyne xigeenka Soomaaliland wasiiro maamulka gobolka iyo ka degmada Boorama ayaa saaka waxay si wada jir ah uga codeeyeen xarunta hanuuninta magaalada Boorama kadib markii ay soo guteen waajibaadka codeynta ayaa waxay la hadleen warbaahinta waxna bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaanada gobolada galbeedka ugu baaqeen in si nabad ay ku codeeyaan isla markaana ay ku doortaan xildhibaanada cusub ee ku kala matali doona golayaasha deegaanka iyo wakiilada hawshu waxa ku bilaabtay si nabadgelyo ah waxaan ilaahay ka rajaynayaa inay si nabadgelyo ah noogu dhamaato dadkuna si fiican bay u joogaan waana u soo diyaar galoobeen walow dadka meesha ku jira iyo sida hawshu u socoto aad moodayso inay culayskeeda leedahay haddana waxaan dadka ku boorinaynaa inay u samraan oo ay is ixtiraamaan hadduu ilaahay yiraahdo aad inaynu si nabadgelyo ugu footoono qof walba qofku jecel yahay waxaynu gabagabeynaa hawshii 9 bilood oo komishanku soo waday oo maanta farteena yar ku xiran qacanteena yar halka aynu ku ridano ku xiran si nabadgelyo loo codeeyo isu dulqaata is ixtiraama dadku u badan yahay hawsha ugu badani ee leedinka baahay waa inaad dulqaataan waxaan ka codsanaa qof walba oo jooga degmada Boorama gobolka Awdal dalka Soomaaliland inuu maanta codeeyo si uu codkiisa ugu heliyo qarankan inuu adduunyada ka helo xaq uu leeyahay ictiraafka xaq uu leeyahay inuu ka helo horumarin xaq aynu adduunyada u leenahay inuu wadamada aynu isku mid ka nahay la simanno maanta inuu ku faraxsanahay dhammaanteen ummadda Soomaaliland inay maanta tahay maalin aad u qiimo weyn maalin ay guuleysanayaan dhammaan shacabka reer Soomaaliland maalin ay magacooga iyo sharaftooda karaamadooda ay caalamka meel kasta ay kor u kacayso waxaan leenahay nabadda ay ku bilaabantay doorashadaasi in ummadda reer Soomaaliland shacabka meel kasta joogo inuu nabadda ilaaliyo inuu maanta oo maalin kaliya culayska jira iyo cid la joogo loo adkaysto isagoo qofku cidii uu rabina dooranaya oo xor u yahay isla markaana ilaalinayo anshaxa doorashada dhanka kale hanaanka u socoto codbixinta doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxa kor joogteynaya oo kormeer kala duwan ku soo maray goobaha kala duwan ee loo asteeyay ka codeeyaan bulshada kala duwan ee magaalada Boorama safare iyo diblomaasiyiin kala duwan oo ka socotay wadamada caalamka waxaana si isku mid u fiirinaya hanaanka ay bulshadu u dhiibanayso codeynta ay ku soo dooranayaan golayaasha deegaanka iyo wakiilada. My name is Stian Christensen. I'm with the Norwegian Embassy. I'm part here of a big European delegation organized by the European Union visiting Somaliland in connection with these important elections in your country. We're not here to draw any conclusions or have any assessment of the elections per se, just to commend Somaliland on this very democratic important process that you are conducting today. Is the first time to come to Somaliland? We have been here several times and visited Somaliland, so this is not the first time. But this is, of course, the first time we visit an election process. So we've been to several polling stations and seen a lot of people who are interested to use their right to vote. sidaasi si lamada waxa dhanka kale nala hadlay qaar ka mid ah bulshada kala duwan ee safafka iyo fiilada u galay siday codkooda u soo dhiiban lahaayeen kuwaas oo qaarkood ay cabasho ay ka muujinayaan xilliga la furay goobaha iyo hanaanka guud ee u socoto inkastoo si isku mid ah u soo dhaweynayaan in maanta ay nasiib u helaan in si isku mid ah u soo doortaan golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee cusub ee dhawaanta la filayo in xilaalka loo dhaariyo iyagoo lagu jiro safaf dhaadheer sida arkaysaan si wanaagsan bayna runtii u socotaa dadkuna si fiican bay u codeynayaan codkooda u dhiibanayaan ilaa haddana wax dhibaatay ma jirto ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay codbixintaasi si nabadgelyo ah noogu dhamaato
ay noo soo baxaan kuwa khayr qaba oo ummadda u daneeya oo u shaqeeya in ilaahay noo soo saaro ayaan rajaynaa saaka waa soo kala lahday goobii codaynta hadda aynu joognaa oo ku kulannay hay waa run weeye wariye Cimraan aad baad u mahadsantihiin adiga wariye Nuux Kadiye waa run saaga salaadii subax markaan tukannay baan nimidnay goobta waxaan ilaa xalay ilaa sanadkan oo dhan waxaan sugaynay inaan mar uun aan waxaa la dhahay himiladii madaxweynuhu ku ballan qaaday in la fuliyo in dad hagaagsan ha dooranno in maanta taasaan iyaan ilaa xalay u soo jeednay oo ka shaqaynaynay tiina maanta waan gudannay oo waanan gudanaynaa Soomaaliland oo dhanba way ka socotaa kooran hanaanka codbixinta intii halkan aad joogtay sidee u socotaa goobtu goormay furantay goobtan hadda aad timid aad ka codeynaysid si qurux badan bay u socotaa imika 7 bay furantay waxaad moodaa inay waxoogaa dib u yar dhacday dhammaan madaxdii qaranka oo dhan way iskugu timiday sidoo kale daawadayaal hadda wax barbarkayga jooga mid kamid ah dadkii saaka halkan u soo kalahay inay codkooga ay ka dhibtaan bal waran saaka halkan ayaynu joognaa goobta codeynta ayaynu joognaa muxuu yahay ujeedka ugu weyn aad ka leedahay inaad halkan maanta aad u soo kalahay waxa inaan codayaan u imiday laakiin ilaa waqtigii doorashooyinka Soomaaliland laga bilaabay degmada Boorama lama kala jajabin goobaheedii meelan ka codaya ma haysto dad badan oo ila midina waa la mid waad arkaysaa kuyuga halku marayo waa arkaynaa kuyugu laakiin inuu dheer yahay laakiin cirifkaagu maad ka gashidaa kuyuga adigu aan ka galo waxa jira dad badan oo dismoral qaadaya markaad aragto 1,000 qof oo kuyuga ku jira balaalku joogeeg sida Hargeysa iyo Burco waxa ay goobtan in la kala jajabiyo si qofka awood ugu yeeshay inuu codeeyo 50% dadkii ku qornaa goobtan way iskaga noqdeen inkastoo in hanaankaas la nidaamiyay ay waqti hore ahayd laakiin hadda codeyntii baa la soo gaaray maxaa adii hadda kula gudboon waxaan ku qasbanahay in 10 saacadood naqaadhe inaan codeeyo laakiin ogow inay dhib tahay dadkuna dismoral ka qaadeen goobahani la iskugu keenay 2,000 qof yaan doonaynaa in nabadgelyo in ilaahay noogu dhameeyaan doonaynaa ilaahay waxaan baryaynaa nabadgelyo oo magaaladeedu way fiican tahay si fiican baan salaada waxaan u soo kala haray inaan footayno waxaan leeyahay maanta anagoo xilliga kuyuga saa u soo jirna cadceed iyo quraac la'aan intaba waan u adkaysanaynaa dalkaygan dhexda u xidhnaa dadkaygan soo saaranaynaa hoo iyo hiilba oo la garab taaganahay ujeedada ugu weyn aad ka leedahay inaad codeysaan maxay tahay waxay u leedahay inaad dalkayga muhiimadda mustaqbalkana laga bedelo oo dawlad cusub helno oo xaq helno maxaad rajaynaysaa marka waxaan rajaynayaa dal fiican cadaalad fiican dalka maanta cadceedda iyo inta aan u joognaa inay cadaaladeeda noo simaan baan doonaynaa arkayo meel kastaba sidaasay u buuxdaa hase ahaatee nimankani way gacan culus yihiinoo dadku xalay way hor seexdeen goobaha codbixinta waxna kama dhaqaaqayaan sidaa darteed waxaan doonaynaa ilaa caawa 9 inay goobuhu noo furnaadaan oo maadaama ay sidani tahay xaaladdu inay noo kordhiyaan komishanku oo halkii 6 ilaa 6 ay ka ahayd 7 baa la bilaabay waxna ma kala socdaan sidaa darteed waxaan codsanaynaa in la noo kordhiyo nabadda ilaashanaysaa si dimuqraadiyaday u codaynaysaa xornimay u codaynaysaa inkastuu meeshu low bibi tahay oo xaggani culays tahay ay dadka u jooga goobaha joogay anigoo maxamed cabdilaahi camira waxaan joogaa dhirtii daaqa cid waliba Soomaaliland iyo gobolka Awdal ku nool aad baa u salaamayaa waxaan bulshada Soomaaliland soo jeedinayaa qof waliba xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto laakiin uu ka codeeyo si nabadgeliya muwaadin soo qaado afxirkaaga raac tilmaamaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee laga hortagayo safmarka COVID-19 maanta doorashadu 31 May tahay anigoo ah musharax u taagan degmada Boorama kana sharaxan oo magacaygu yahay Axmed Aadan Daahir lambarkaygu yahay 101 doorashaduna si fiican oo habsami oo dadku si fiican u codeynayaan dadkoo dhammaan degmada Boorama aad baan ugu mahadcelinayaa sida habsamida leh ee wanaagsan ee sharafta leh ee u dhacayso isku soo wada duubo doorashada saaka lagu soo dooranayo golayaasha deegaanka iyo wakiilada cusub ayaa doorasho dalka nooceegu ku cusub yahay bulshada ayaana si isku mid ah uga wada dhuur sugaysa waa Cimraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga Ariel TV Boorama